kumanaan ka tirsan shacbiga muslimiinta ee ku dhaqan magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo ayaa saaka aroornimadii hore isaga kala yimi dhammaan xaafadaha waaweyn ee koobsato magaalada iyo tuulooyinka ku gadaaman si ay u tukadaan labada ragcadood ee salaada Ciid al-Fitriga waxaana dadkii ay buux dhaafiyeen fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Stadium Dalo iyadoo ay salaada kala qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda heer gobol iyo heer degmo culimaa u diin iyo shacabka ku dhaqan magaalada waxaana markii ay salaadaasi gabagabowday hadal dheer halkaasi ka soo jeediyay Sheekh Maxamed Cali Biixi oo kamid ah culimaa u diinka waaweyn ee ku dhaqan magaalada Cerigabo waxaana uu ka warramay fadliga ay leedahay bisha barakaysan ee Ramadaan waxaana uu sidoo kale uu xusay in xukuumadda cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay shacbiga reer Soomaaliland ku xukunto shariicada Islaamka isla markaana ay dadka u sameeyso cadaalad dawladda daalimada ahina ma waarto walaal muslimad ba ahaatee waa qaacido jirta weey waxaan leenahay taariikhda ummadda Soomaalida haddii dib loo raaco waxa soo baabiiyay waa cadaalad darro wax u joobay xidha حبت كل إفتاء وتحسها سومالي شاو سو يشي وحنا قلنا عصب إلهي مدة أنت كجبر شرعي كذا كلها عدالتنا وجاذا واحد جوابه يحرق يحبت كل إفتاء يقف وحلا وها يستعمل قرنا إنه الإسكاي إنه يولي جدي أبد سنوات الإسكاي العالي waxaa sidoo kale isaguna munaasabadaasi ka hadlay duqa degmada Cerigabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo hanbaliyay guud ahaanba shacbiga muslimiinta meel kasta jooga iyo shacbiga reer Soomaaliland waxaana uu Ilaahay uga baryay inuu sanadkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaa isaguna munaasabada soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre oo u hanbaliyay guud ahaanba shacbiga reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer gobolka Sanaag waxaana uu ku dheeraaday dhinacyada nabadgelyada iyo sidii loo ilaalin lahaa ammaanka waxaana uu sidoo kale uu ka codsaday guud ahaanba shacabka ku dhaqan gobolkan sidii loo daryeeli lahaa dadka tabaalaysan isla markaana carruurta goomaha loogu sameyn lahaa hoy markii ay gabagabowday munaasabadaasi ayaa dadweyne ay u soo dareereen dhinaca iyo magaalada isla markaana aad ku arkaysay shaaracyada iyo wadooyinka waaweyn carruur aad u tiro badan oo buux dhaafiyay isla markaana ku xardhan qalabka carruurtu ku ciyaaraan haddaba inta dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada mikrofoonka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan inay ku ciido si khayr leh iyo magaranaysa barwaaqo maanta way ka muuqataa barwaaqada dalka ka jirta inay sida u ciidayso gobolka Sanaag insha Allah sidaas iska fiican baan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliland oo dhan badbaadin gobolka ay isugu yimid gobolka Sanaag aad bay u farbadciidan ciid la midana wali kuma arag waxaad moodaa wadanka barwaaqo horumar wax isbedel aad u weyn baa ka dhacay wadanka الله وبركاته وحان سوق بني السلام كلي الله دمان دتك مسلمين تا كارهان دتك صوماليات وحان لا يعيد ونكسن السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته وحان همبلي دمان أمد الإسلام كامل البيت شوغان كارهان صوماليدا كارهان غير صوماليلان وحان لا يعيد كان عيد كيسا خير يا برواقي بش الله ينو قرسي الحمد لله خير كل عام وأنتم بخير عيد مبارك عيد مبارك مسلمين مeel kasta joogan ba عيد مبارك baan leenahay ya muslimiinta meel kasta joogan ee maanta u ciiday ciidka Ramadaan waxaan la ilaahay naga aqbalo amalkeena oo soo marnay iyo kanayna maanta gudanayda salaada midowdeen oo la baxdeen Sanaag Media Group waxa jecelahay horta qoladiina wixii midoobaaba wax tasimo bihablillah jamiican tibay qaateen waxa weeye taasaan idinka mahad celinaya oo idinku hambalyeynaya talabaad waxa weeye muslimiinta meel kasta oo ay joogan iyo farxadda ay ku jiraan taa tul lamida ayaanu meel walba ugu diraynaa waxaanu leenahay kullu caam wa antum bikhair يا عيد مبارك هذا سلام يا هويدا يا باي أنا عيدنا عادي جاولا عيد بس برواقة في قارنا ولا يا هويدا يا باي كل عيد مبارك صومالي مسلمين سلام يا ولا لا هنا وسلام سلام يا هويدا يا باي يا ولا لا مسلمين عيدك مسلمين ما تقول عيدين وحنا عيدنا سفي عن ومالين وناكسن ومال بشر بركتنا رمضان إلهي خير كذا نص ولا لينا حلا يا تذكر عيد وناكسن عيد مبارك وبركاته كل عام وأنتم بالخير وحن ما تعلق كسلام يا دمان عالم الإسلام يكون عيد بشبشك عيد الفطر كجاي حن ليه كل عام وأنتم بالخير إلهي رمضان تبيشي صومنا ده بركتنا إنه صار ما يسنا إلهي دم بجوالك waxaan ka salaamayaa shacabka muslimiinta meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa daafaha caalamka waxaan si gaar ah halka kale uga salaamayaa family-ga haday joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa uga sii gudbinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo iyo qoyskiisa waxaan kaloo halka ka salaamayaa shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo ciid wanaagsan ciidka iyadoo ciidkan waa ciid aad iyo aad u weyn isla markaana shacabka ku dhaqan magaalada Ceergaabo wajiyadooda